magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamuud cabdullaahi kulmiye. caaway waxa weeye 16kii soonfureed 1446 taariikhda hijriyada. caaway waxaan rabaa in aan ka hadlo laba cinwaan. cinwaanka koowaad waxa weeye kalandarada Soomaalida. cinwaanka labaadna waxa weeye saadaasha roobabka. labadaasaan rabaa bal inaan ka hadlo. kalandarka Soomaalida marka la yiraahdo waa dhowr nooc. waxa ugu horeeya kalandarka hijriga. kalandarka hijriga waxaan la wadaagnaa wadamada islaamka ayaan la wadaagnaa oo aan ka wada soconaa. waxaa ku xiga kalandarka la yiraahdo dirirada ayaa ku xiga. diriradana waxa weeye waa hal xidig oo dirir la yiraahdo iyo bisha say u wada fariistaan. marka dirirka iyo bisha say u wada fariistaan ayaa waxaa loo sameeyaa magacyo. xilliga xagaaga ah iyo xilliga dayrta ah lama xisaabiyo lamana fiirsado. sidiisana wuxuu dhacaa xilliga dayrta ayuu dhacaa oo muuqiisa la waayaa. muuqiisa la waayaa micnaheedu waxa weeye wuxuu galaa iftiinka qoraxda ayuu galaa. iftiinka qoraxda hadduu galana waa qarsoomaa. marka wuxuu maqnaadaa ilaa 20 beri. kabacdina wuxuu ka soo baxaa salaada subax dhinaca bari buu ka soo baxaa. marka magacyadaas markii magaranaysa la gaaro diraacda ayaa la bilaabaa iyadoo la rabo in laga saadaaliyo guga soo socda in laga saadaaliyo. marka gugu wuxuu bilaamayaa 16 ama 15. labadaas waxaa loo yeelaa isku magac baa loo yeelaa oo waxaa la yiraahdaa ama habar ari ama aminla ama fushada. saddexdaas magac waa loo yaqaanaa waddanka Soomaaliya sida ay u kala duwan yihiin. dirirka xiga waxaa la yiraahdaa gusoore ama seermaweydo ama ceelka geeye ayaa la yiraahdaa. dirirka xigana waxaa la yiraahdaa dirir cawleed baa la yiraahdaa ama cawl ku dhashay. labadaasba waa loo yaqaanaa. marka waxay la fariistaan marka bisha markuu soo wareegtaba 15 ama 16. markii 16 tiro dhabana markay la fariisato waxaa la yiraahdaa karmo. tiro kisiya markay la fariisatana waxaa la yiraahdaa kisiga waxaa la yiraahdaa karmo. dhabankana waxaa la yiraahdaa dhammo baa la yiraahdaa. marka 15 iyo 16 waa isku magac oo waa habar ari. marka 16 markuu la fariisto wareeg labaad oo bisha ay soo wareegayso labay ka jaraysaa oo 16kii waxay noqonaysaa 14. hadday 15 ahaydna laba ka jar waxay noqonaysaa 13. marka waxaa la leeyahay waxa weeye waa gusoore ama seermaweydo ayaa la yiraahdaa. marka waa xubintii dhexe weeye. xubinta u dambeysana waxa weeye midka la yiraahdo dirir cawleed ama cawl ku dhashay. wuxuuna noqonayaa 12 iyo wuxuu noqonayaa 11. waana dirirka u dambeeya ee guga. marka reer baadiyuhu waxay jecel yihiin marka uu la fariisto tiro kisi ah sida 15 oo kale. micno ahaan marka la fiirsho waxay noqonaysaa angalka ma yaqaanaan reer baadiyuhu ma aysan aqoon jirin. 16 waxa weeye dirirkii ayaa wuxuu jiraa hoos buu jiraa angalkiisa hooseeya. 15 waxa weeye angalkiisa baa sareeya oo kor soo jira. sidaa darteed 15 xubintii roobka ayaa dhow. sidaa darteed ayay u jecel yihiin reer baadiyuhu. marka kaas wuxuu leeyahay xoogaa ceebaal buu leeyahay hashkadeen buu leeyahay inkasta uu ka fiican yahay dabshidka xisaabta la yiraahdo. kaas waa sidaas.
dabshidka markaan aado dabshidku waxa weeye waa waxa laga soo guuriyey sidaan qiyaasayo markaan dabagalay kalandarka ay leeyihiin nimankan iiraaniyaanta ah ayaa laga soo guurshay wuxuuna weeye 365 go-aan weeye laakiin waxa weeye Iiraan marka la yiraahdo waxa weeye waa 365 iyo rubuc kaligoodna maaha reer galbeedku waa 365 iyo rubuc Etoobiyaanka waa 365 iyo rubuc Carabuhu waa sidoo kale inta aan arkay oo kalendar ah oo shamsi ah ama qorraxda ah dhamaantood waa 365 iyo magaranaysa iyo 6 saac ama si rubuc laakiin Soomaalida ayaa ka duwan marka halkaas waxaan ku sameeyay anigu dabagal baan ku sameeyay dabagalkaasna wuxuu noqday gurigeyga ayaan tardigiisa waxaan ku duloliyay musbaar baan ku duloliyay in yar baan ka duloliyay iftiinka ka soo gala oo shilinka oo kala ah marka uu fuulay darbiga ayaan waxa weeye meeshii waxaan mariyay goobaabin inta iftiinku qorraxda ku fadhiyay ayaan waxa mariyay goobaabin maalintaas goobaabinta aan marinayo waxay ahayd 8 November midda dabshidkana waxay ahayd 110 xisaabta markaan sameeyay waxay ahayd 1996 ayay ahayd markaan calaamadda sameeyo marka waxa dhacday anigoo raba taariikhda shamsiga ah oo milaadiga ah iyo dabshidkeennii balkan saxan ama kan khaldan inaan ogaado halkaas ayaan waxaan fiirin jiray sanadkiiba mar 8 November ama 110ka dabshidka ayaan fiirin jiray marka 8 November meesheedii waa ka dhaqaaqi weeday goobaaminta ayay soo galaysaa meeshii ayaan intaan calaameeyay 8 November ayay soo galaysaa marka halkaa waxaad weliba aan ka sii ogaaday dhaqaaqa yar bay sameynaysaa 8 November 3 sano ah sanadka afraadna marka uu sameysmo Febraayo markay noqoto 28 si toos ah ayay meesheedii ugu soo laabanaysaa laakiin xisaabtii dabshidka maadaama aysan lahayn maalin siyaada maadaama aysan lahayn ayadu meeshii waa ka tagtay markii ugu dambeeyay aan fiirshay nus mitir ayay meeshii ka socotay marka saas marka waxa lagu ogaanayaa in uu khaldan yahay kalandarka saddexaad waxa weeye waa kalandarka xidigaha oo iyadu mataalba xidigan la yiraahdo dirirku wuxuu dhacaa maalinta ugu horeysa magaranaysa xagaaga ayuu dhacaa maalinta ugu horeysa ayuu dhacaa muddaan fiirinayay isagu ma guuro halkaas uu fadhiyaa marka rag reer mudug ahaayo cilmigan aad u yaqaanay oo xasan maax nin la oran jiray reer mudug ahaa Allah naxariistee iyo nin la oran jiray Muuse Geelle waxay yiraahdeen oo ka dardaarmeen dabshidkii iyo xidigihii waa iskhilaafeen marka waxa raacdaan biyana xidigaha raaca xidigaha dabshidkiina waa ka dayriyeen waxay yiraahdeen wuu khaldamay ayay yiraahdeen anna waxa weeye tilmaantii hadda aan sheegay waxaan arkay in dabshidkii uu khaldan yahay oo sanadkii uu ka maqan yahay 6 saac ama rubuc maalin rubuceed uu ka maqan yahay sidaa darteed anigu waxaan isku dayay bal inaan sameeyo kalandarkii Soomaaliya inaan ku sameeyo dib u habeyn oo dabshidkii aan ku daro rubuc aan ku daro kalandar baan sameeyay kalandarkaas aan sameeyay waa ka duwan yahay midka hadda la ictiqaadsan yahay oo Soomaaliya oo dhan dadka haysta dhaqankii hore ay isku raacsan yihiin ayaan khilaafay waxaan ku khilaafay dabagal aan sameeyay oo aan arkay khaladka jira marka hadda waxa loo baahan yahay kalandarkaas in la arko oo magaranaysa la hirgeliyo ayaan u baahnahay wali waan la ahay meelo badan baan u cidsaday wali waan la ahay wax ila jeegareeya marka hore jeegareen baa ka horeysa waxaan sameeyay ma sax baa ma khalad baa ka bacdina hadduu sax noqdo in la ila hirgeliyo taas waxa weeye waa kalandarada Soomaaliya